waqtiyada ka mid ah waxaa jiray oday weyn oo murtiila ahaa kaasoo dhalay 7 wiil. wiilashiisuna badanaa dagaal iyo muran ayay ku jireen, ismanay gacan qaban jirin, taasoo ka dhigtay odaygii aabahood inuu u baqdo kana murugoodo inuu carruurtiisa xaaladdaa ku arko, doonana inuu arki lahaa iyaga oo isjecel. in badanna ku waaniyey sidaas, balse wax isbeddela kamuu arkin. maalin maalmaha ka midana waxa uu ugu yeedhay aabbihii inamadiisa qolkiisa, waxaana uu soo qaatay koox ula ah oo uu isku xidhay. inankiisii weynaa ayaanu ka dalbaday inuu kala jebiyo, laakiinse wuu awoodi waayey. kii ku xiga ayaanu u dhiibay, sidii oo kale ayuu awoodi waayey, ilaa dhammaantood loo wada dhiibay oo ay wada awoodi waayeen. kadib aabbihii wuu ka qaaday waanu kala furay ulihii, mid walbana waxa uu u dhiibay hal ul, waxaanu amray inuu kala jebiyo mid waliba ushuu haysto. mid waliba wuu kala jebiyey ushii, weliba si aad u dhib yar. wuu eegay aabbihii wiilashiisa, waxaana uu ku yidhi, waad awoodi weydeen inaad kala goysaan ulaha iyagoo isku duuban. markay kala baxdayna kiina ugu yar baa si fudud u kala jebiyey. sidaasi la mid ayuu noqonayaa xaalkeennu markaynu kala baxno. markaynu kala fogaanno waxaa aad u fudud inaan jabno. haddiise la midoobo oo layscaawiyo, waxaa la noqonayaa sida ushaas midowday oo kale, cidna idinma kala jebin karto. haddii aad rabto akoon iib ah, nagala soo xidhiidh nambarka borofaylka saaran.